kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka Somali Cable oo idinkaga imaanaya stuudiyaha telefishinku uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Waxaa idin waramaya anigoo Cabdilcaziz Riili qodobada aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya guddiga ganacsiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya u qaabilsan aqalka golaha shacabka ayaa walaac ka muujiyay raashinka soo gala dalka Soomaaliya oo wax control caafimaad aan lagu sameeynin. miyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka ku-xigeenka UNDP-da u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. weynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdilcaziz Laftagareen ayaa kulan dardaaran la qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed. baarlamaanka cusub ee maamulka Galmudugna waxay ansixiyeen guddiga doorashooyinka ee Galmudug. waa qaar ka mid ah qodobada warka telefishinka Somali Cable u diyaar garooba isagii oo dhameystiran balse qadar adeega bulshada. Horyaal Online hadda hantideennii halkeedii la helayo horyaal baa arligeena timid oo hormoodkii xawaaladaha hamuun baan u qabnee iyo hilow joogto ahe hadal haynteedu badanaa hawl kastoo xawaaladaha iyadaa laga helaa hohay iyo ciil ha igelin iyadaa hawl karoo laysku halayn karaa oo heegana had iyo jeere ha hareer marinee hore u gaadh hantidaad ku dirtaa habsan iyo habow ma leh hawsheedana waa online horyaal baa la yidhaa horyaal online hindisaheedu wuu sarreeyaa u dhiibo ka qaado ku aamin abidka kalsooni weeyaan loo boga horyaal online hadafkeennu waa degdegsiima daacad iyo hannaan aad ka helayso halka aad adduunka ka joogto horumar weeyaan la helay horyaal online haddaba wixii faahfaahinintaasi dheer fadlan kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashadda inkaga muuqda. gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay ku-xigeenka wakiilka UNDP u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. kulanka ayaa gudoomiyaha golaha shacabka iyo waliba ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya waxay uga wada hadleen arrimo dhowr ah waxaana intii kulankaasi uu socday leesla soo hadal qaaday arrimaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaana wakiilka ku-xigeenka UNDP ee magaalada Muqdisho soo gaaray kala hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan hanaanka dardargelinta shaqooyinka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaana kulankan uu imaanayaa xilli gabagabo uu yahay xiritaanka kalfadhiga golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. faahfaahin dheeraada lagama bixin waxyaabihii ay ka wada hadleen labada mas'uul balse qoraal kooban oo la soo dhigay bogga golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in arrimo muhiim ah labada dhinacba ay ka wada hadleen. baarlamaanka cusub ee Galmudug ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxay ku meel mariyeen guddiga doorashooyinka Galmudug. Salmaan Xaaji Axmed Raage ayaa warkan inoo soo koobaya. kadib kulan gelinkii dambe ee maanta magaalada Dhuusamareeb ay ku yeesheen baarlamaanka Galmudug kulankaasi waxaa shir gudoominayay gudoonka cusub ee baarlamaanka labaad ee Galmudug oo warkacayo gudoomiyaha baarlamaankaasi Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo ku-xigeenadiisa waxaana kulanka lagu ansixiyay guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee maamulka Galmudug. guddigan la ansixiyay ee ka shaqeynaya doorashooyinka madaxtooyada Galmudug ayaa wuxuu ka kooban yahay 13 xubnood kuwaasi oo laga soo kala xulay baarlamaanka cusub ee Galmudug waxaana guddigan ay dhawaan soo saari doonaan jadwalka doorashada. 13 xubnood oo magacyadooda la soo saaray isla markaana baarlamaanka Galmudug ay ansixiyeen waxaa ku jira hal qof oo dumar ah waxaana ay kala yihiin kow Maxamed Mire Axmed, Cabdiraxiin Axmed Cigaal, Xasan Xirsi Xaashi, Mursal Maxamed Yuusuf, Cabduqaadir Cabdullaahi Maxamed, Shaacir Sheego Maxamed, Cabdiraxmaan Cali Maxamuud, Maxamed Xuseen Tahliil, أحمد عبد الرزاق عبد الله أبو بكر علي محي الدين شيخ عبد الله
mahad kilic warsame iyo amal axmed cabdulle 13 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka galmudug isla markaana iminka loo xilsaaray ka shaqeynta howlaha doorashooyinka madaxweynaha ku xigeenkiisa ee galmudug ayaa waxaa la filayaa in dhawaan ay howlahooda guud galaan isla markaana ay soo saaraan jadwalka cusub ee doorashooyinka madaxtooyada galmudug jimcihii ayay ahayd markii baarlamaanka galmudug uu doortay guddoonka cusub ee baarlamaankaasi guddoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen waxaan la filayaa in dhawaan la soo gabagabeeyo doorashooyinka madaxtooyada ee maamulkaasi galmudug Salmaan Xaaji Xamdraagi Soomaali Cable Muqdisho guddiga ganacsiga baarlamaanka Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay raashinka soo gala dalka Soomaaliya oo aysan jirin cid kontrolsho Maxamed Cusmaan Daahi ayaa inoo soo koobaya warkan gudoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsiga iyo dhaqaalaha ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay shaybaar lagu baaro cunto kasta oo la soo geliyo xildhibaan Daahir Maxamuud Muuse gudoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsiga iyo dhaqaalaha ee golaha shacabka ayaa waxa uu sheegay in sharciga horyaala golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ah jaangooyinta tayadhoorka Soomaaliyeed in loo baahan yahay in la dedejiyo waxa uuna sheegay inaanay jirin goob lagu baaro ama mishiin baara tayada cunto kasta ee Soomaaliya la soo geliya waxaan rabnaa sharcigaanu inuu noqdo sharcigi baari lahaa wax kasta oo wadanka yimaada iyo wax kasta oo wadanka ka baxaya taas haddaan la helinina ma heli karno caafimaad iyo daawo caafimaad qabto cunno caafimaad qabto oo kulligood aan isleenahay heerkii loogu talagalay bay gaarsiisan yihiin sababtoo ah haddii shaybaar haysanin aad ku hubisid wixii waxay noqonaysaa wax kasta oo mala awaal marka waa dabarkii xiri lahaa cid kasta oo noo soo dhoofisa shay quality-giisu liito ama shay sun xambaarsan marka sharcigaana ayaa control doona haddii rabino wata xildhibaane adigoo fursadan nooga faa'iideynaya hadda haddii sida aad tilmaamayso sharciga hadda la meelmarinayo warkaa wuxuu noo muujinayaa wax walba oo Soomaaliya soo galo inaan la kontroolin xilligan maadaama aysan jirin hay'ad quality control awood badan oo shaqeysa xilligan marka wax badan oo badeecooyin iyo standardkina lagu talagalay ma joogan inspection kaliya sameeyaan qolada hadda airportka balse ama dikada ka shaqeeya balse hay'adana markay hawl gasho oo shaybaar qaran la helo dhammaan wax ka soo wadanka soo gala ama xuduudaha ka soo galeen airport ka soo galeen custom ka soo galeen iyo dikada ka soo galeen shay aan wadanka soo galay oo aan la baarinin inuu wadanka Soomaaliya soo gali maarna sidoo kale wax ka soo wadanka ka baxaya oo dibadda loo dhoofinayo waxa compulsory ah ama khasab ah inay wataan shahaadadii baaritaankaas wadanka ay tagayaan waxa ugu horeeya la weydiiyo waa quality control-ka iyo check-up-ka ay soo mareen inspection-ka ay soo mareen sidaas waxay u heli karaan ganacsadeenu inay wax soo saarka wadanka ay iib geyn karaan sida noo sheegeen markaan sharcigan ka shaqeynay markaan sameeynay la tashiga bulshada ama ganacsatada dhaqaale fara badan inuu wadamo dariska uga maqan yahay hindi oo kale hal nin oo ganacsada wuxuu la marin lacag badan baa iga maqan kalluunkii iyo argostadii buu qaaday marka maadaama uu wadankii shahaado bixin karinin oo aysan haysan certificate-kii quality control-ku waxay maraan wadamo kale ama nin ganacsada oo kale ka sii qaada taasuna waxay caqabad ku noqotay dhabarjab ummadii Soomaaliyeed iyo ganacsadeeni saa daraadeed sharcigan wuxuu horseedayaa kobaca dhaqaalaha wadanka Soomaaliya maadaama uu shahaadadii siinayo quality control-ka marka sharcigan waxaan rajeynayaa caafimaad qabka bulshada iyo deegaanka iyo xayawaanka kala wadanka ku nool iyo kobaca dhaqaale labadaba inuu soo korin doono wadanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Daahiye Soomaali Cable Muqdisho dowladda Turkiga ayaa si adag uga hadashay qarax ismidaamina oo lagu weeraray injineero ka shaqeynayay wadada dheer ee xiriirisa magaalada Afgooye iyo magaalada Muqdisho sida warkaan ay ku faahfaahinaysa Kifeeye Daahir Ibrahim wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Mevlut ayaa si kulul uga hadlay qaraxii ismidaaminta ahaa ee shalay lala eegtay injineero u dhashay Turkiga kuwaas oo dhisay wadada isku xidha Muqdisho iyo Afgooye Mevlut ayaa sheegay in weerarkaas aanu marna hakin doonin hawlaha ay ka wadaan Soomaaliya isagoo qiray in weerarkii shalay uu waxyeello ka soo gaadhay muwaadiniin Turkish ah weerarka argagixisada ee Soomaaliya ka dhacay waxa uu mar kale muujinayaa wajiga foosha xun ee argagixisada weerarada bahalnimo marnaba nagama joojin doonaan la dagaalanka argagixisada waan garab taagnaan doonaa walaalaheen Soomaaliya waxaan walaalaha dhaawacmay u rajeynayaa dhaqso inay u bogsoodaan si dhow ayaan ula socon doonaa xaaladooda ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Turkiga
al-shabaab ayaa kordhiyey weerarada ka dhanka ah howlwadeennada Turkiga ee dhisaya wadada isku xidha Muqdisho iyo Afgooye waxaana tan iyo markii wadadaas la bilaabay dhacay qaraxyo miino iyo kuwo loo adeegsaday gawaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey bishii December ee sanadkii hore 2019 weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay Eges Control Afgooye ayaa waxa ku geeriyooday 2 injineer oo u dhashay Turkiga iyo 50 ruux oo shacab Soomaaliyeed ah كفي داهر سومالي كيبل مقدشو مسؤولينta guddiga arrimaha gudaha iyo amniga maamulka Hirshabelle ayaa booqday xarunta saldhigga booliiska degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Maxamed Cabdi Baadil ayaa warkan inooga soo diray magaalada Beledweyne guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka Hirshabelle ayaa maanta kormeeray xarumaha amniga degmada Beledweyne xarumaha ay madaxdaasi maanta kormeereen waxaa kamid ah saldhigga booliiska degmada Beledweyne iyo xarunta nabadgelyada gobolka Hiiraan kulamaysi xog wareysi ay la qaateen saraakiisha ay la kulmeen waxayna soo indheeyeen qaybaha ay ka kooban yihiin xarumahaasi guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka Hirshabelle ayaa warbaahinta la hadlay waxayna faahfaahin ka bixiyeen kormeerkii ay ku sameeyeen xarumahaas waxa uu ku saabsanaa aad iyo aad aan runtii ugu faraxsanahay saldhiggan hadda aan joogno isagoo baaba ah ugu dambeysay laakiin maanta cidii timaada way ku farxaysaa dhismo ahaan iyo baaxad ahaan way ku matqana aan ku farxaysaa aad ugu farxaysaa waxyaabo ciladaha oo dhibaatooyin oo guud oo jirana meesha waa ku aragnay arrimahaasna madaxda naga sarreeyay ayaan la wadaagi doonaa una gudbi doonaa hadii la yiraahdo oo hadda mid aan inta go'aan uga gaari karna ma ahan waxaana jecelnahay hadii la yiraahdo in arrimahaas wax laga qaban doono insha Allah taala soo dhaweynta aad soo dhaweysay taliye aad iyo aad ugu maasata adiga saraakiisha saraakiil xigelinta iyo dableyda dhinaca kale guddiga arrimaha caafimaadka iyo cadaaladda ayaa kormeeray iyagana maxkamadda gobolka Hiiraan iyo xabsiga dhexe ee gobolka Hiiraan taliyaha waxaan u dardaarmayaa insha Allah taala wanaagiisi يعني أحسن سمنتيسي محايا الإلهي وحير سبحانه عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إلهي وحير سبحانه عز كوه وناكسن إلهي كعب صنايو كوه وناجنا يدتك يعني حبسي خجري وحول بوناك وسمينا يو إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إلهي كوه سيوم عيسيهي كوه الله كعب صنايو كوه وناك ما دتك هرسيديو أدق ما دام عن صور أنا حبسي قال كستا أن ودول استاجنا أي نوشيجن وناجي يعني تليها وناكسن هاي ولما عامل معامل وناكسن تليها وحنليها إن شاء الله تعالى معامل كاس يعني هرؤسي وإن شاء الله تعالى الله سبحانه عز وجل أجل حسنات يكاسنيها قدوميها قبل كمارتي سنة قدوميها قبل كمحكمة ده قدوم محكمة ده قبل كغير الله سيتاكو السجن آد يونس الدوي يعني آد يونس الدوي وحكى قدومنا soo dhaweyntii uu noo soo dhawaastayna khayr Allah siiyo marka anaga waxa leenahay insha Allah taala Allah laga cabsado insha Allah ku soo gabagabeynaya nin walba shaqadiisii Allah ula jiro Maxamed Cabdi Baadil Somali Cable TV Beledweyne guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa warka telefishinka Somali Cable oo idinkaga imaanaya stuudiyaha telefishinku uu ku leeyahay magaalada Muqdisho waxa idin waramayay anigoo Cabdulcasiis Riili waa idinku mahadsantiin daawashada iyo la socodka warka Somali Cable